wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Soomaaliya ayaa sheegtay inay diyaarisay hanaanka looga hortagayo musiibooyinka ka hor inta aysan dhicin iyada oo maalinta berito ay ku beegan tahay 14 Oktoobar 2 sano kadib musiibadii qaraxii Soobe ayaa wasaaradda gargaarka dowladda Soomaaliya waxa ay dhagax dhigtay xarunta qaran ee gurmadka degdega ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta musiibooyinka Xamse Saciid Xamse ayaa si wadajir ah u dhagax dhigay xaruntaasi wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Xamse Saciid Xamse ayaa sheegay in wasaaradda ay waajibkeeda tahay sidii looga hortagi lahaa loona maareyn lahaa musiibooyinka wuxuuna faahfaahiyay waxyaabaha lagu qaban doono xarunta qaran ee gurmadka degdega ومعلنتي أولو دبالدقاي disaster risk reduction خطرها والله يرين كرا لكن لما ما يرين كرو ما أنت بحكي صوت توصل معلن تاريخ له رئيس الوزراء حسن علي خير ما تكون ورجع دقي حرمتي قرن كها أقول من الدقدقة ومعلن تاريخه دور مشاريع يا ودن كان لقيه رجلي لكن حرونتاس وحرونت أمي مثلا أو لو كمان دونه لقوا معموله دباتين كسر صعد دب إلها عليه وحكى له قرشنا وجود جرو سدوا دخل بدن إن شاء الله إن لو ريج دونه early warning system وسادالين تهوده يقول لك عنت يكوها يعني FAO ده كشقية هاي هذا كله سوالمه تاسنا وهالبيج اللي بعده عندنا وزارة اللي جربوا ونلقى إن لو ريجنا ما هذا ديار إنا قلنا لكن هو ديار جروجي أم كجرنا سند يبر وقت كسر صعد إنا لوريج دونه إن شاء الله إنه نكون تحوك تودن ككبح الداتا إنه دولة جعنت كويس. رئيس وزراء حكومة الصومالية حسن علي خيرة أيادن كيسك الله حرنت جرمت كقرنك أو ما أنت حكومة الصومالية نجح دكتي. حرنتي ما أنت حسد مدن إن حرنتن لنجح دجا وهيكذا لطي دعاء حنون بدن. waxay ka dhalatay dhacdo xanuun badan oo ay u gurmadeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo isxilqaamay oo halkan ku shaqeeyay markii ay nagu dhacday dhacdadii 14 Oktoobar warbixintii ay la wadaageen xukuumadda ayaa waxay ahayd in la dhiso xarun gurmad qaran oo mustaqbalka ummadda loogu adeego inaan ka jawaabnay taladii ay bixiyeen shacabka Soomaaliyeed oo aan u dhisayno xaruntii ay dalbadeen waa qayb kamid ah dawladnimada macnaheedu waxay tahay in loo adeego shacabka inaan nahay dad u shaqeeya shacabka Soomaaliyeed inaan qaadano talada ay bixiyeen dhanka kale wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo qaban qaabisay munaasabad loogu dabaaldegayay maalinta yareynta khataraha musiibooyinka oo 13 Oktoobar maanta oo kale dunida loogu dabaaldego ujeedka loo asteeyay munaasabadan ayaa ahayd sidii bulshooyinka loogu wacyigelin lahaa yareynta khataraha musiibooyinka ugu dambeyntiina wasiirka ayaa abaalmarino guddoonsiiyay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda maaraynta iyo musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya oo ay abaalmarinadaasi ku mutaysteen sida wanaagsan ay u howlgaleen shaqaalahaasi Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okkey TV Universal magaalada Muqdisho